waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yar oo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheena maaliyadeed iyo halku marayo waxa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin oranaya khasnadaheena buuxa lacaga fara badan baa laga tegay waxyaalaha noocaas oo kala anigu runtii waxaan u qaadanayaa mas'uuliyad darro waxa kaloo tahay weheliye oo aan maqlayaa wasiir Beele iyo sidaa yidhi waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego la iguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idin la wadaago qasnadaheena buuxa aniguna ma oran mana buuxaan ciddii tidhaahdana waa mas'uuliyad darro runtii sidaas ayaa xaqiiqadu tahay habka aan ku shaqaynay si aad u ogtihiin kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda 25 laga bilaabo waa in kharashaad loo baahan yahay bixinno meesha doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa wax isku soo xuluulaysataa 25 ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa waxa kale oo ogtihiin dad iyo Soomaaliyeed lacagta inagu aan haysano ee dakhliga gudaha inagayna soo gala inaguma filla sidaa daraadeed mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jiraan waxa weeyaan maalin walba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suuro gasho in lacagta mushaarka la bixiyo haddaba su'aasha aniga la weydiiyay anoo goor walba ka shaqeeya waxa weeye bishan 25 maanta 20 weeyaan 25 June mushaarka baa la bixinaya ma bixin karaysaa haabaan ku oran bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxbaa noo shaqeynaya baan ku oran ta ku xigtaana waa sidaa ta ku xigtaana waa sidaa 6 bilood ee soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxa iyaga ku jira la qabto waan bixinaynaa baan oran haddii la qaban waayo oo maalin kaliya laga seexdo lama bixinayo noqon marka runtii waxaan doonayaa arinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa in runta laga sheegaan doonayaa in xaqiiqadu waxay tahay lagu saleeyaan doonayaa anaguna runtii taasaan horena ugu taagnaa haddana aan u taaganahay inaan waxay runtu tahay ida kula shaqeeyo dawladda kula shaqeeyo madaxda kula shaqeeyo mas'uuliyad weyn baa ina saaran mas'uuliyadda maaliyadduna mid la siyaasadayn karo ma aha anigu intaan meesha joogana ma ogolaanayo haddii qof been sheego waa ka daba imanaya waana saxaya sidaasaan halkan soo galay waa mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh